waqti dheer kadib muddo oo 19 casha kadib isjiid badan waqti badan maanta waxaan taaganahay meeshii aan intaanaba wado qof walbay guushan maanta aan gaarnay way wada rabtay dhinaceedina ka gaartay laakiin qof walbay si in loo gaaray rabtay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu damacsanaa wax kasta ka weynay maanta waa guuleysanay dhamaanteen waxaan ku faraxsanahay in anigu aan magacaabanahay muddo 60 casho ah waqtigeygii markii loo qaybiyo saddexna dhig kamid aan reer Matabaan galiye wixii aad saaka aad ku heshiiseen iyo nabad inaad qaadateen iyo waxaad ku ballanteen taas ilaahay dartiis mid ka tahay reer Matabaanow Allahumma fashat ilaahumma marqaatika haw annagana ka maamul ahaan waxaan ballan qaadaynaa hadii ay mashaariic noqotay hadii wax qabad noqotay inaan garab istaagna ka heer gobol ahaan anoo gudoomiyaha gobolka Hiiraan taasi waa sidaas كمقن النبي صلى الله عليه وسلم حلقي وقدام بيسي وقدبديسي وحو قارسي ومدو وحو بلغوا عني ولا آية آيات بكردقة دادك إيقا قارسي يقول وكينا مقن كينا جوغها قارسيو إنا نبض ودا قادمني غير ما تبان هلا قارسيو تاسنا وبلن إلهي درتي سانو قلنا وحنا أدو مهد علينا عيد مدى قلب كسيدو وأنا كلي أنا مرهر مقالة مقدشة جوغو وحيابها ميلها كدعا ayagoo dhaxda u xirtay dadaal rafana xaaladaha ay ku sugan yihiin aan kor ka ogeyn markaan ugu doomiye gobol ma aanahay waan ugu mahad celin rafaadka iyo dhibka ay soo mareen beerkan ka ogsoonna sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaasha dibashiisinta kamaaliyada kadib dhuska dhamaan sharaf ay leeyihiin waqti dheer la soo qaadanay waxaan si gaar ugu mahad celin gudoomiyaha degmada Matabaan asagoo aad u dadaalay iyo ku xigeenadiisa waa si fiican iyo shaqo wanaagsan dhamaan dadku isugu garab istaageen waxaan rabaa maanta wixii ka dambeeyo gobolka xaaladiisu uu isbedela Matabaan waa xur ayadoo xur ay hadana si kala maskax ahaan loo haysto dadku ayaga islaynaa argagaxisa ma haysato laakiin ayaga dhibaato iskugu filan dhibaato ku filan ay haystay waxa la rabaa degmooyina dirsi loo dad walaalihiin ay degihiin waa la haystaa waxay dawladdu isku dayaysaa inay meeshaas weerar iyo howlo laga qabto Matabaan waa meeshii laga duuli jiray wayna si badan tahay hadii laga duulo oo la guuleystaa reer Matabaan waxa laga rabaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laqadwati fi sabilillahi aw raahati khayr min ad-dunya wa ma fiha in jihadkaas loo kalo nooc kala dagaalka aan u badalno annaga dhaxdeena aan sacafino isgarabsano ilaahay dartiis ku garabsano wartaas ballama noota wa ma santihiin sharafi karaamaadna leedihiin hawshii maalmahan aan soo wadnay intaas inoogu xiran tahay waana mahadsantiin insha Allah